بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waa Antar Sayid Xuseen waxaan barakahay xarunta Baafo ee magaalada Muqdisho waxaan barnaamijkeeni ahaa Excel data analysis waxaan taaganahay warqadii ku qoran tahay L11 waa 10kii 11aad 10kan waxaan hadlaynaa function loo yaqaan average if function kan waxa loo isticmaalaa markii la sameeyo celcelis laakiin waxaan wadanaa hal shardi amba hal condition amba hal shuruud markaas oo kale waxaan ku khasbanahay inaan isticmaalno function kan loo yaqaan average if waxaan kaloo arkaynaa pivot table-ka iyo waliba qaabka loogu sameeyo average-ka haddii arabna mushaharka inaan celcelis ahaan aan soo saarno statistics-ka waxa loo yaqaan mean markii arabna inaan isticmaalno waxaan isticmaalaynaa function loo yaqaan average Excel-ka markii la joogo average ayaa la isticmaalaa mean lama isticmaalo tab ayaan leeyahay wuxuu baahan yahay inaan nambarada soo gelino waxaan soo gelinaynaa salary-ga bisha ayaa xiriya enter ayaan leeyahay waxay noqonaysaa celcelis ahaan in shaqaalaha shirkadda ka shaqeeya qof kasta inuu qaato 196 waa celcelis maahan macnaheedu qof kasta 196 inuu qaadanayo dadka lacagaha ay qaadanayaan kala duwan yahay laakiin nambarkan wuxuu noqonayaa nambar aan u qaadan karno qiyaas ahaan waxa ay shaqaalaha ay qaataan haddaba function-kan average waa dhammaan shaqaalaha celcelis inaan ka sameeyno xogaayar way iska culus tahay markii aan shuruudo aan wadano in aan isticmaalno function-kan loo yaqaan average waxaan ku qasbanaanaynaa mid xogaayar ka hormarsan iyo walaalo ay yihiin inaan u wareegno oo loo yaqaan average if waa titiraya dhilida aan leeyahay function-kaas average if ayaan isticmaalaya laba qaab ayaan ku tusi doonaa hadii la raado qaab wuxuu noqonayaa Excel-ka wixii 2021 ka horeeyay hadii ay haysid qaabka u isticmaal lahayd wixii 2021 ka dambeeyana waa arkaynaa equal ayaan ka bilaabayaa function-ka waxaan soo qabsanayaa average if tab ayaan leeyahay wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood range criteria iyo average range criteria-da waa degmooyinka range-gana wuxuu noqonayaa meesha table-ka uga yaalo hal mar ayaan district-ga korkiisa falartida u dhaweynayaa markuu noqdo mouse hoos u jeedo click ayaan siinayaa si aan u soo doorto F4 ayaan taabanayaa jiha walba ayaan ka xiranayaa comma ayaan leeyahay waxa igu xiga criteria-da degmada hoona ayaan ka bilaabayaa formula hoos ku boonayaa waana hal jiho kaliya ayaan u socdaa hoos oo kaliya u soconaa inuu socdo waa u baahanahay hadda hodan ayuu taagan yahay godku xiga wuxuu noqonayaa H7 wuxuu noqonayaa Shibis oo sii soconaya H8 ayuu noqonayaa oo ah Shingani waa caadi waa iska dhaafayna comma ayaan leeyahay average range waa isku celceliska column-ka laga sameeyay wuxuu noqonayaa salary-ga muuskiga dhaweynaya falarta hoos markii u jeesato click ayaan siinayaa F4 ayaan taabanayaa bisha ayaan xiranayaa control enter ayaan leeyahay si uu istaago fil handle-kayga ayaan soo qabanaya oo soo jiidaya amba double click ayaan siinayaa si aan ilaa hoos aan ugu diro xogaayar lacagtan dollarkii waxaan u baahanahay qaybta kor haddii ay imaado currency aan ka dhigo automatically hore ka noqonaya lambarkana waa weynay karaa si aan u aragno lacagtii waa weyn celcelisaan degmada honan dadka ka imaada mushaarkaasi qaataan Shibis intaas ay qaataan Shingani intaan ay qaataan intaan waa koobiyeenaya control C maybe hoostan ayaan dhiganayaa control V waxaan rabaa formulada qaabka u sameeyay in isbedel yar aan ku sameeyo intaan ayaan iska titiraya kan naftigiisa uma baahni oo iska clear gareynaya hoostan ayaan ka isticmaali doonaa qofkii haysta Excel-kan casriga ah 2021 iyo wixii ka dambeeyo wuxuu isticmaali karaa in uu diyaariyo hal formulo waana u baahnayn in wax la xiriiro equal ayaan taabanaya function-ka average if ayaan soo qabanaya falarta hoosanta taabanaya markii function-ka ay imaado si aan u doorto tab ayaan leeyahay saddex qaybood ay ka kooban yahay range wuxuu noqonayaa degmada waxaan soo qabanayaa degmada district-ga mubaan ina xiro comma ayaan leeyahay criteria-da wuxuu noqonayaa saddexdan inaan soo geliyo horay hal ayaan u gelinaynaa laakiin markaan saddexda ayaan gelinaynaa marba saddex criteria haddii aad u isticmaasho meeshan criteria-da wuxuu fahmayaa Excel-ka in nidaamkii spill range operation-ka u baahan tahay in wax la soo daadiyo comma ayaan leeyahay waxay maanaya salary-ga falartida markay hoos u jeesto click ayaan siinayaa oo soo qabanaya asagana mu baahan inaan xirno bisha ayaan xiraya enter ayaan taabanaya hore wuxuu ka sameynayaa inuu soo daadiyo labada jawaab waa isku mid nidaamka xirxirida ayay noqonaysaa waana Excel-adii hore nidaamkan wuxuu noqonayaa spill range operation wax loo yaqaano oo habkii soo daadinta formada godka ugu horeeya ku jirta godadkan kale godkan ugu horeeya fiirinayaan hodan 165 celcelis ahaan Shibis 286 Shingani 185 waa isku mid waxay isdhaamaan male haddaba pivot table-ka marka isticmaalayno daatadana meel kamid ah waa inaan istaagnaa insert ayaan imaanayaa kadibna pivot table-ka ayaan toos u gujinayaa
wuxuu weydiinayaa war intee jeceshahay inaad dhigatid aniga waxaan leenahay meel ka mid ayaan rabnaa inaan dhigno warqadan aan taagannahay locationka hal mar ayaan klik siinayaa locationka inta ayaan u dhigayaa kadibna okay ayaan leeyahay wuxuu sameynayaa waxyar haddii aan socono in uu keeno datadii waxaan soo qabanaynaa degmada waxaan kusoo tuuraynaa rowga hore wuxuu kasoo qabanayaa degmooyinkii oo halhaleh waxaan soo qabanaynaa salaryga waxaan kusoo tuuraynaa valuega by default wuxuu u programsan yahay inuu isticmaalo function custom laakiin isbeddel yar ayaan ku sameynaynaa waxaa imaanayaa design report layout show in a tab performance ayaan leeyahay waa iska xirayaa fieldskan uma baahni meesha sum ayaan bedelaynaa right click ayaan leeyahay kadibna waxaan soo gudbayaa summarize value by average ayaan isticmaalayaa waxaan rabaa celcelis inaan u wareegno xogaa yar wuu nagu dheereeyey meesha waxaan leenahay average way nagu filan tahay inter ayaan leeyahay si averagekaas u isticmaalo xoogaa yar right click number format ayaan taabanaynaa si aan calaamada dollarkii wixii aan u helno waxaan leenahay currency laba god waa iskaga dhaafeynaa okay ayaan leenahay hodan 165 shibis sidoo kale shingaani 185 saddexdaa habba kii aa isticmaashid jawaabtaada sax ayay noqonaysaa kii kuu fududahay isticmaalaysaa وإن شاء الله تعالى انت سيكون كننا مشان كسي ودين دونا 10 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته